السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا هلكن وشبكة عالمية برع أونلاين كنا سود وهذا برنامج قال ونكيجينو حفلة فوريتان كدوكسي السراء أو فرح سكندري سكول مقالة ودامجو تاسيو كوكب صنطي دوكسي بوردن كهاي مقالة ودامجو أنا كسر قريب قلنا المسؤولين تهرب قبل يمد مو سياسيين أقوياء علماء ودين يددوين أعداد تربوا. إن شاء الله تعالى. وعنو كلام وباقينا ويجنا كسر ويننا. أن هيدها سمفلك أولها مركز دكسية الثلاء وحنسارا يجونا إن أي مجرنا يساسها بصمية وبسوا دوالان سيدي أي وحوق كمان لهايين إسكول ككن يا يوم الجليل لهايين اسمه سوانا ركتان لما جلس بالاسم وبربرسي أي أجي وهي ودمي لما جلس مركز لقب بالأمانة إن شاء الله تعالى إتكسر القصيصو oo wax ka qabanaysa baan ugu baaqaynaa insha Allah taala ilaahay waxaan ugu baryayaa maradin shaqayntan tan la ismu ilaahay inuu barinano meeshii ku jirta ilaahay waxaan ugu baryayaa marka ugu horeysa inuu raxmad ballaaran ina siiyo laga furay wadaadku iyadoo in badan ardaydu ay markay lixaan marayso ama toddobaad ay marayso la bedeli jiray hadiya jeeba ay bedelkii soo jirtay marka kulliba annaka iyo macallimiintaba waxa ahmiyad aadan loo ah ardayda maanta hooradada wiilasha ee loo fariisanaya dugsiga si kastoo lagu helaba guud ahaanba gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Wadaamagoy waxaa farxad ballaaran iyo sharaf ah inay maanta secondarygii ugu horeeyay laga furo magaalada Wadaamagoy maanta waxa laga jira barasad gobolka xaraka jiro waxaa ballaaran waxaynu isleeyahay waxaan malaynayaa ladkii shanaad inuu yahay ama afraad ladka imika ka baxay standard 8 ee maanta taagan badan oo ka soo qayb galay marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa Ismaan Aw Faarax oo ah ninkii ismuhu dib u cusboonaysiiyay ilaahay waxaanu ka baryaynaa meesha aad ka saartay wax sano ilaahay kugu bedelo reerweynaha goyn waxaan mar kale aad iyo aad ugu hambalyeeyaa horta codsigii naga codsateen dawladda hoose wadin ka aqbalay mashruuceena hagaajinta wadooyinka dib aynu bilaabayna haddii ilaahay ma dhaqso waxaan kaloo leeyahay hadalkii intuu hore waa la yidhi waxaan codsanayaa oo ka codsanayaa dadka qurba joogta ee daneynaya mashruucan inaad soo maalgelisaan ama aad qaalaankaad u ururisaan xoojisaan iskuulkan waxaan kaloo iyana maanta halkan iyana fariin kale u marinayaa waxaan leeyahay caynaba waxaa laga dhisay dugsi sare mudduu soconayay adigu 2 sano baa ka baxay oogna waa la mid hadda waxaad moodaysaa inay soo gamashiyeen dadkii qaalaanka ururi jiray iyagana waxaan leeyahay reer Wadaamagoy waxay wadaan kudayda oo waxaa laga taan iyaga iskuulada waa lagu dhashay inuu isku hawaan isteen qaalaankiina waa taramee waxaan bay marinayaan waxaan leeyahay qolyahana kudayda oo afka xasana kudayashada wanaagsan way fiican tahay waxaan kaloo leeyahay runtii hadalku iska علي هذا اللي حضرات علامة كتر معنا ونجدالنا مجال حاجة عباس واجه لي وانا ضعفا تجمع لماذا يبقى مش فاهم ورنا وحنا بان يعني سوف هذا الله يا معني ان waxaan ka fahmayaa oo kaliya maanta anigu malihi waxa weeye uu mala baahi u baajirtay tii ma mala ilaahay aniga sabab iga dhigay marka uu gidigiiba waa salaamaya inta ay maanta inta badan baan idinka salaamaya waxaan aad u salaamaya odayga magaaladan Wadaamago ayaan marka hore aad u salaamayaa Ibrahim Abukur Xaaji
kaloo salaamayaa madaxda faraha badan ee uu hogaaminayo wakiilka madaxweynaha Somaliland oo halkan isagu fadhiya isla markaana ahina walasaabka gobolka Saraar madaxda kale ee faraha badan ee xafladdan ka soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyin gidigii waa wada salaamantihiin faraha badan leh hablo iyo labadan dhinac iska soo horjeeda hablo iyo inamaba yani waa wax aad loogu farxo weeye iskuulkani waa iska mucjiso iminka ninka halkan aad loo ammaanaya la leeyahay waxbuu dhisay ilaah baa igu og ma ogeyn in la furayo maanta markaan xalayni ma ogeyn hawlo kalaan isaga socday malaa farsamo ilaahay baa ku jirtay anigu in la furay baanu haystay maalin hore dabeedna ibraahim abubakar xaajeedo baanu bakhaadadkeena isagoo fadhiya aan ugu yimid dabeedna wuxuu u haystayba inaan ogahayba mala qadar ilaahay uu iskaa farsamo kalaan isaga socday iminka haddaba erey baa jecelay inuu reer wadaamago ugu celiyo ereygaa malaa si wacan maalintii hore hadalka anigu waa dhameeyey ereygaasaan ku celinaya mar labaad injineer Suleymaan baa waxa ka yara dhawaajiyay inuu iskuulku u baahan yahay laabab iyo shughullo noocaas ah hadda ereygiina ku celinaya anigu ballankeenu wuxuu ahaa iskuulkan high schoolka ee wadaamago biidni alcasa wajal aniga ayaa dhisaya iminkana waxaan leedahay hay-adina dhisi mayso NGO-na dhisi maayo cid kalena wax loo weydiin maayo laba class baa dhisan waxaa u dhiman waxa weeye lab baa u dhiman waxaa u dhiman library baa u dhiman waxa dhiman form 3 iyo form 4 waxa dhiman xafiiskii labka laftiisu laba u qaybsamaa oo waxa weeye scientific lab iyo computer lab yani dabcan baan ahaa anigu waqtiyada ka mid ah marka ereyga aan mar labaad ka dhawaajinaya waxa weeye hay-adi dhisi mayso iskuulka wadaamago haddii ilaahay ka dhigo anigu aan noolahay haddii ilaahay iga ofsado waa waktigeeda anigaa dhisaya iskuulkan haddii ilaahay ka dhigo qurba jooga anigu reer wadaamago baa lahay laakiin reer xaabatog baan ka ahay aniga reer xaabatog waxaa ballan noo ahaa reer wadaamagoona wada sheegtaan reer xaabatog haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan u ka celinayaa iskuulka yuhuud ma hidin nebi muusena idinkama dhalan eg yuhuudda mucjisay ahayd yani muuse ilaahay buu toos kula hadli jiray ambiyada kale waxay lahaayeen macallin oo waxaa jibriil dabeed reer wadaamago ma aha inaa wixiina ku xidhaan danihiina yuhuud bay ahayd oo nebi muuse ilaahay u soo diray dabeedna cuntada oo bisil baa samada looga soo dejiyey war dantiinu yaanay ku xidhnaanin cid kale dantiina idinka ayaa oofsan karaa aynaba jaar baa tihiin waana magaalo madaxdiinnii waa istaageersan kartaan laakiin dantiina idinka ayaa leh maanta waxaan qiyaasay rag baanu yaro sheekaysanayno 5 kun oo shilin oo laadimiyay badan yihiin bishii wax badan ba rag baa cuna 5 manjood oo qaada ama qaar baaba ka badsado kolley marka 5 kun oo shilin haddii la bixiyo afar boqol oo qoysoo deganayna wadaamago waa 2 milyan oo shilin ayuu noqonayaa bishii haddii la bixiyo sanadkii waa 24 milyan weeyaan yani guushu maaha wax fog laakiin dantaada marka ku xidho inay yar oo cad oo meel kale ka yimi oo dabeedna intuu adiga taybab kaa duubo iyo video haddawna hadal omalaaba ku sameeyo ku dulduubo dabeedna adiga uu iibiyo wixii isagoo weliba wax dhaba aan ka sheegayn waxaad adigu u sheegaysa isaga yani waa ayaan daro waxa weeye annagaa daawana waxa la soo duubo
waxa weeye waa documentary baa laga samaynayaa waxaa laga iibinayaa television journalistka ayaa laga iibinayaa telefishinada dabeedna digsiga aad wax ku karinayso waxaa lagaa dhigayaa inaad wuxuu yeelanayaa computer lab fiican waxaa laga rabaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardayda saddexdaas waa ina wada shaqeeyaan marka waalidku dameeyo ilmaha uu iskuulka u jiro marka waalidku dameeyo ilmaha uu iskuulka u jiro ilmuhu marka uu dameeyo in homeworkiisa ama shaqada laga rabo macallinku marka waajibaadkiisa macallinimo guto waxa weeye saddexdaas waxay dhalayaan iskuul horumar leh ayay dhalayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi maano faarax ilaahay khayr siiyaynu leenahay waxaan runtii ku sii farxay يعني اسمها كلمة ما يسكول كه لبدي فصل دنا يلا برو تريجي وكو بلان قاضي يسكول كينو دم يستوى وكو بلان قاضان عادي مركا وكو فرحسن هاي وآد ورثين إن إلهي نخير بسيه وحنا نورثي وحنا نبلان قاضي الناس ده وشقينا نولا شقينا هؤلاء سوا بدنيه وحفر بدن مقابل ككربا واحد جلس واحد بدن بانو إن شاء الله وكو بلان قاضي ناينة كهشو sida aad ula shaqeynayso deegaanka iyo dadka iyo bulshada aad ula shaqeynaysan kula shaqeynana hadaa la ka dhigo taana insha Allah aloosha gasho waxaan kale oo runtii aad ugu mahadnaqayaa dadka faraha badan ee madaxda iyo kelmado kooban ayaan doonayaa meel badan ayaan ka yar hadlaan rabaa kelmado kooban ayaan ku soo ururiyaa baan doonayaa waxaan jeclahay in aad la igu samro munaasabadan aan ka faa'iideysanaya marka ugu horeysa waxaan aad ugu diirsanayaa sida ay waxbarashada u hana qaaday intii sanadkii dawladda cusub runtii ay maamulka haysay waxa runtii jira ilaa dhowr iyo 30 afartaneeyo dugsiyo hoose dhaxaa gobolka ka furan ardaydu markaa ma aragtay iskuulada hoose dhexe ku jirto kaliya 10,000 arday bay ku dhowey boqolaal baa ka dhiman macallimiintu way tiro badan tahay runtii maanta awoodii dhaqaale dawladdu waxay dul dhigtay waxbarashada marka education-ku sidoo u soo koro oo bayskii looga soo bilaabo sare loogu soo kaco ayay runtii xoogga saartay aad iyo aad bay wasaaraddu ugu mahadsan tahay guud ahaan siyaasadda xukuumadda ku jahaysan in waxbarashadu ay noqoto meesha ugu horeysa ay ka soo galayso horumarinta dalka waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa qurbajoogga reer Wadaamago iyo waayeelka ka wada shaqeeyay inay macallimiinta in muddo sanada ay runtii gacanta ku sii hayaan waalidiintuna runtii ilaawi maayaan baan filayaa macallimiinta way kabi doonaan haddii la ka dhigo marka taasi waa tii waxbarashada wasaaradda runtii si fiican bay wasaaraddu noola hawlgashay kaliya xogay cumuq waxay ka jirtaa oo intan ila joogtaaba ay ogtaho runtii ay ka jirtaa meelihii runtii muhiimadda u lahaa ama ay ku xidhnayna aan kala hadlay iskoolashiga deeqa waxbarashada la helo weli gobolku wax firsada lagama siinin yani marka in wax laga qabto ay xaq dadkan u leeyihiin waxa ay qaranka kale leeyihiin wax ku leeyihiin oo ay xaqoodiina helaan ay tahay waa rajaynaynaa jawaab degdegaan runtii rajaynaynaa taa iyada waxaan runtii noo soo gudbayaa oo kale oo mawduucaad moodo inuu ka baxsan yahay waa tan ciyaarihii dalka la qabanayo oo gobolka Togdheer xaruntiisa Burco lagu qabanayo marka waanu ka hawlgalay runtii wasaaradda waanu kala hadalay wasiirka iyo agaasimihiisa waanu kala hadalay guddida loo xilsaaray hawsha waanu kala hadalay runtii ma qaylin gobol ahaan inagu maynu qaylin fadaxad maynaan samayn wasaaradda maynu caybeen dhibaato kale maynu samayn gobollo fara badan baa hawlaha galay waan ka qayb gelinin marka يعني قبل كجبل مركز لو صار دري عين بها وحن نري يعني قبل كسرار إسقى وحق لحبين لمن وحوي وحي أي بلان قاعدة وسارة عياره في جدول أي بلان قاعدين هدي وح لجب الجرود درين ككلمة معطى وح كم مسؤول وحي كبدأ أنا وح مسؤول لو كمان لهن وحن وجود بيا هنتي قبل كان هذا ما قاعد سرار لينها لو بحيي وحوي إنك أيام قاعدة سبحته ده كل شغله ويا الكيسة كل شغله الكيسة كل شغله حكومة الكيسة كل شغله وحوي هذا المجال السوري هاي وقبل عصبوية وقبل اللي مجالين وكمل هاي لكن وكدوية قرن كانوا نوشينا دلونا كانوا نوشينا إنه ونسلوبنا هاي وقبلنا كلا اللي مجالين وكدوية قبل الشراء أو شقينا يا أو ما ملك الرسمي هاي أو قرن كيسو عنو مفردن أو كم حنين وكم صعبين ربما أنا أكسر لواتن سنة بعد لك كل شيء تكسو وكوب بابا وحبرشنا دبي ودعان ما مل ما هيستان عليك دور الميهلين وحقل الميهلين وحبل وحلا وح وهو سيء بنادم أولين أما قرن كلين أما حكومة كلين أما ضد كلين أما متكل كلين ما يهلين المركع وحبر شان قد حياة مشرو وحياها يدك حق لين إنه هلان بيبهين ما أنت وان تحكوا وان كده حمليا وكيل بانك هاي دولتنا وكيل بانك هاي وأنوشة وان قديا قرن لنا وان قديا حفيظ وحق ولا إن قرن لنا قديا قرن لنا قديا مشرو
dawladdana horena waan ugu sheegnay haddana waana media waxaan ugu marinaynaa oo aan meediyaha arrimahan ugu maraynaa waxa weeye annagu kamaanaan gaabsan wax allaala wixii ay xiriir dawladeed iyo laamihii la marin lahaa iyo waddooyinkii la marna waanu marinaa laakiin haddana ilaa hadda waxaa jira waxyaabo fara badan oo aan sidii maamul ahaan loo baahnaa u soconayn beelaha wada degan gobolka way beesha wadaamugu ka mid tahay siyaasadda dawladda cusub oo aanu wakiilka kaga ahay aanu wadnay waxa weeye in la isku soo xidho maantana runtii meel wanaagsan maraysa dadku waa isku xidhan yahay waata wadaamugu la wada fadhiyo madaxii mujoogaa la is wada jecel yahay waa la isku xidhan yahay wixii cabadkana yimaada si sharaf leh oo sharafi ku jirto oo naxariis leh oo walaaltinimo ku jirto oo wadadeedii waa inaynu isu marraa isugu nimaadnaa wada xallilaa beeshii si gaar u cabanaysa cabadinkeeda maamulkeeda u soo gudbiso iminka muddadii abaaruhu dhaceen muddadii ka dambeysay muddadii sagxadda laga soo qaaday muddadii maamulka o dhan la aasaasay hadda runtii meel fiican buu gobolku maraya maanta haygalkii gobol 70% 80% wuu taagan yahay waxa yaree u haray waxaan rajeynayaa intiisa badan sanadkan oo dhammaystirato marka hadda lafteeda waxaan damacsanay sanadkan howlo badan baa ku jira oo ay ka mid tahay xafiisyadii runtii xarunta gobolka laga hagi lahaa oo waxna hadda ruugan aynu furayno waxna ay ka dambeyn doonaan oo iblahan insha Allah aan rajeynayo xagga bilayska iyo xagga xarumaha gobolka iyo jeelka iyo waxa inay sanadkan gabagaboobaan baan inta la rajeynayo wax badan ay ka qabsoomaan markay gabagaboobaan waxaan ku talagalay inaan shir dambe haddana qabto oo kii oo kale ah oo isugu yeero waayeelka iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka ee beelaha wada degan iyo mas-uuliyiintiisa meel kasta wada joogaan oo mar dambe dib looga tashado sidii gobolka hawlihiisa loo dhaqaajin lahaa waxa ka dhiman loo dhammaystiri lahaa wixii ka qabiyo qabyada looga saari lahaa wixii daldalooda loo awro waxaan ku talagalsannahay shirkaas sanadku markuu gabagababa haddaa la ka dhigo inaynu qabanno marka ay soo dhowaatana yacni markaa maaragta hawshiisa lasii shaaciyo hadda lafteedana yacni markaa si gooni aan usii dilbilowno marka taa iyadaana runtii waxaan filayaa inay meediyaha ay mariyaan oo wariyaashu aanay arrinkaa iga ilaabin yacni shirkaa sanadka markuu gabagababo loo qabanayo waayeelka beelaha madaxda mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ee gobolka ku tacalluqa oo gobolka wixii haraaka iyo wixii waxqabada ee ka dhiman iyo wixii lagu biirinayo iyo wixii kala tabashaa lagu dhammeeyo saasaynu u hogaaminaynaa saasaynu isugu waraynaa saasaynu ugu yeeraynaa wixii aan qaban karo waa qabanaa wixii na soo gala waa qaybinay wixii maamul ah anigu runtii waxaan leeyahay soo jeedin falasaabada waxay leeyihiin soo jeedin dastuuriga bay leeyihiin wixii soo jeedinteeda anigu waxaan ka qabanaya ka qabtay xubnaha ugu waaweyn ilaa 3 xubnood baan beesha wadaamugu يعني مرتا أنا وراء بقرة بل كلو عن صدق حمود أو سلالة أنا بقرة ولا إيمان تريه بالله أنا بقرة أنا يرجع وراء بقرة هذا حسوا دعسوا ويانا ويوحد كل شقين ويانا وعد وحيسوا ويانا وحودي يلا درس أحضي لكن أنا مش كده إنه وحي سوق جرا إنه نساعد دالة أنا أقول ما يسرو أنت الوقت جار إنه نور وحي ساسي ورصده إنه شاف كوسي هيسنو نين يسوي واحد جار الدنيا إنه يروح شو شغلة بورا أحسن أما واحد جار يسوي ربع أما واحد جار خلاه يكون حيو daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa xafladii furitaanka dugsiga sare ee Faarax Secondary School ee magaalada Wadaamugo oo hadda laga bilaabo ka mid noqon doona dugsiyada sare ee gobolka Saraar waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Aadan Dirir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh